السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عبد القادر أحمد الشيخ waxaan ku noolaa wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai shaqadeeduna waxay tahay dhanka saxaafadda wadankayga waxaan la jeclahay horumar iyo wanaag mar walba waxaan ka shaqeeyaa sidaan isku keen lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dood meel walba ay joogan waana jeclahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga magacaygu waxa weeye Cabdinaasir Khalid Saciid waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta shaqadeedu waxay tahay warbaahinta waxaan inta badan mustaqbalkayga hamigaygu yahay sidii aan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed u gaarsiin lahaa horumar midnimo cadaalad sinaan iyo waayeltinimo iyo waxgarad waxaan jecelahay inaan mustaqbalka noqdo hogaamiyaha daacadda ah ee ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha mustaqbalka إن شاء الله بإذن الله بارنا وحصل السودانا حكومة ليرها جرمت أو جرمتها شعبك الصوماليات كلا فرقسن دون كده على دي سكالة شوية آد بدو ما هتسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وكمال حسن حسين وعن كل اشتي مقالة مقدشو وعن هذا كنا والله هيدلك ستق إمارات كعربته وعن هذا كشقيا صحافة حرته يوعي قلنت أمد الصوماليات إن شاء الله مستقبل كانوا عن جعلها إن كشقيا يوعي قلنت أمد الصوماليات إلا ما أنت عن نولها. السلام عليكم ورحمة الله. مقعي وعبد الرزاق محمد سعيد شبعان وحن كنا والله هيدلك ستق إمارات كعربته قارهان مقالة دبي waxaana hay saxafi kana shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan TV-ga Somali Channel waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan saaxiibadeyda igala shaqeeya warbaahinta waxaan ahay nin daacada shaqadiisa waxaan ka shaqeeyaa danta guud waxaan u dhaxeeyaa bulshada caalamka waxaan ahay nin ku takhasusay warbaahinta waxaan doonayaa inaan dalkayga gaarsiiyo barwaaqada iyo nabadda si aan u baahiyo ma ihi wariye qabiil ku shaqeeya hase ahaatee waxaan ahay nin dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya waad mahadsantihiin. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيga waa Xaamud Cabdullaahi Faarax oo loo yaqaan Xaamud Ubax waxaan ku dhashay wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Sanaag degmada Baran waxaan ku soo barbaaray isla gobolka Sanaag iminka waxaan ku noolahay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan caasimada Abu Dhabi laakiin caawa waxaan ka hadlayaa magaalada Dubai waxa aan iminka anigu aan ahay fanaan fanka Soomaaliyeed ku dhex jira waxa aan jeclahay insha Allah mustaqbalka in aan u shaqeeyo dalkayga Soomaaliyeed iyo dadkayga tamarta daran in aan u adeego oo aan dalkayga dib ugu laabto ayaan aad u jeclahay hadii waqtigu ii saamaxo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa la yiraahdaa Deeqa Khaliif Muuse oo ku magac dheer Deeqa Holland waxaan ku dhashay Soomaaliya gaar ahaan magaalada la yiraahdo Marka Cadeey waxaan ku dhaqanahay hadda oo joogaa oo deganahay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada la yiraahdo Shaariqa waxaan ka shaqeeyaa dadweynahan hanuuninaha saawina danta u hognaa ma hagrane waan u howlgalnaa waxaan ahay fanaanad waxaan jeclahay hadduu Ilaahay idmo mustaqbalka in aan ummadayda Soomaaliyeed aan sidaas mar walba ula taagnaado wixii hanuunina wixii maxaan ku raadayay ii sheeg ah wax walba ku caawin karo hadduu Ilaahay idmo ayaan jeclahay mustaqbalka waadna mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay magaalada Muqdisho gaar ahaan magaalada Madiino magaciina waxaa la dhahay Cali Tanzania waxaan ku noolahay Imaaraadka Carabta waxaan deganahay Sharjo waxaan ahay guri joogto laakiin mustaqbalkayga waxaan rabaa inaan noqdo دكتوريسة أو دكتيجا يو دكتيجا واحد طرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الوحنا هي كان عسد الصوماليات مقعينا وحلا يرادا عبد الرحمن محمد حسن وحنا كل شيء دلك الصومالية جارهان مقالة دقمة اللي يرادا قندلة هدنا وحنا كلنا هي خليج كدلك اللي يرادا عمان وحنا هي كان عسد الصوماليات وحنا جعل هي مستقبلك إن شاء الله وحن جعلها هنا ومضى الصومالية وحبة نقبته هذا ما دام أنا هيك نحصده وحن جعلها هنا هذا النقطة أما سياسي عن سياسي صوماليات كونك فكره سيدا ومضى الصومالية وعي كجد يدباتها هاي سانو قصار لها
dalka Soomaaliyeed dhibaato badan buu soo maray wax kastaana waxay u baahan yihiin fakar iyo aqli iyo dadnimo iyo muwaadinimo dhaba in waxa way runta laga sheego ummadda Soomaaliyeedna waxaan jeclahay inaan wax u qabto madaxweynaha Soomaaliyeedna waxaan jeclahay inaan 2020 insha Allah doorashooyinka dhici doona ka qayb galo inaan ku guuleysto insha Allah jeclahay ummadda Soomaaliyeedna waxyaalo badan u qabto nafteedu jeceshahay insha Allah